wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta kormeer shaqo ku soo maray deegaanada hoostaga gobolka Hawd. Mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme gobolka Hawd ayaa wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ku soo dhaweeyay duleedka degmada Gumburaha Bank ee gobolka Hawd. Wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo xubna ka ahaayeen wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale ayaa markii ay soo gaareen magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd waxa ay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta, gudoomiyaha hay'adda maamul wanaaga iyo barasaabka gobolka Hawd ay si wada jir u dhagax dhigeen dhismayaal cusub oo lagu kordhin doono cisbitaalka guud ee magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd. xafladan dhagax dhiga ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay agaasimaha cisbitaalka magaalada Balligubadle Dr. Guuleed Baashe iyo isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Hawd Axmed Cali Dariise inuu noo dhagax dhigo cisbitaalkii Balligubadle extension lagu soo kordhinayo ama ward lagu soo kordhinayo cisbitaalkaas oo lagu soo kordhinayo halka sida ay muuqataba ward aad weyn laba qol oo wixii aan u baahnaan ka dhigi karno iyo qol maxaan ku raay kale iyo afar suuli dhismahaas oo aan aad ugu baahnayn. mudane wasiir aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa socdaalka dheer ee noo soo gasheen inaad noo dhagax dhigtaan waararkan cusub ee aad ku kordhinaysaan cisbitaalka degmada Balligubadle. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jamac iyo xubno kamida gudida horumarinta afkarad iyo gudida cisbitaalka magaalada Balligubadle. saacada wasiir waan ku soo leeyahay gobolkii Hawd wax qabadkan iyo horumarkan wadana waan soo dhaweynaa. aad iyo aad baan wasiirkaaga mahad celinaynaa sida hawlaha caafimaadka ee gobolka gaar ahaan iyo guud ahaan jamhuuriyadda aad inta aad xilka haysay aad iyo aad ugu dhoon doosho mar walba waan soo dhaweynaa waanu jecelahay meeshii wasaaradii ay timaadaba inaanu garab taagnaano shacab ahaan la shaqeyno. mudane wasiir ka aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa jaaniska wanaagsan ee ku soo beegantay iyo sidaad horumarka caafimaadka u sii wado. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cabdulaahi Bade iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed. marka ugu horeysay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka dadaalka fara badan ee uu la garab taagan yahay jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaanteedba meel kasta ay tahay. jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan waa jamhuuriyad ballaaran waxa gadhawadaankaas aynu wada ogsoonahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi siyaasadda ay wasaaradda caafimaad ku shaqeynaysaa waa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu buul kasta iyo meel kastaba la gaarsiiyo adeeg caafimaad. halkan waxaynu joognaa waa ballaarinta cisbitaalka Balligubadle. waxaan aaminsanahay Balligubadle wuxuu ka mid yahay gobolada dalka cusub ee ku socdo isbedelka maamulka iyo isbedelka muxuu ahaa lagu sameynayo adeeg bixinta. sidaan hore u sheegnay waxa inaga go'an qaran ahaana in maalin walba tallaabo la qaado. halkan maanta waxaynu joognaa cisbitaalka inaan ku darno waarar cusub iyo qolal kale oo cusub oo run ahaantii dabooli doona baahidii marka halkan ku sheegayay agaasimaha cisbitaalku qayb ka mid ah. xukuumad ahaanna diyaar baan u nahay wax alla wixii lagu kordhin karayo horumarinta bulshada hadday tahay caafimaad, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay biyo, hadday tahay arrimaha maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka ku mid yihiin oo runtii ugu mahad celinayo dadaalkay sameynayaan ay isku tashadeen beelaha degan gobolka Hawd guud ahaan. waxaa runtii mudane wasiir aan ku tilmaami lahaa cisbitaalkan wuxuu runtii u adeegayaa 4,000 oo kilomitir square kilometers inuu u adeegayo cisbitaalkan u adeegayo. sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa uu mid u kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalka guud ee magaalada Balligubadle waxaanu warbixin ka dhageystay hawlwadeennada kala duwan ee ka hawlgala cisbitaalka guud ee magaalada Balligubadle. sidoo kale wafdigani intii ay safarkooda shaqo ku guda jireen waxa ay kormeereen xarunta caafimaadka degmada Gumburaha Bank ee gobolka Hawd. Maxamed Shiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.